بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولي بشي رمضان بانو كجرنا maalmaheedii ugu dambeeyay khayrka iyo wanaaga lagu dhex sheegayna waan ku sugannahay. habeenadii loogu rajab badnaa in la helo laylatul qadrina ilaahay wuu soo gaarsiiyay subxaanahu wa ta'ala. idan waxaana la ka rabaa dadaal, waxaana la ka rabaa juhdi, waxaana la ka rabaa inaan aad iyo aad u laalaabno dadaalka iyo juhdiga. bacdama saa ay tahay walaalayaal, aan noqono dad khayrkii wanaaga ku dadaala, aan noqono dad tobankaa dambe aad uga faa'iidaysta. soonkii waa gabagabo, waa la wadaacinayaa. sagootin ayuu sii galay. ayadoo xaaladiisu uu sidaa yahay soonka ayaa waxaa laga rabaa haddana dadka muslimiinta inay xoog u dadaalaan, inay taacada ilaahay qaataan, in amarka rabbi ku socoshadiisa ay laba jibaaraan, in khayrkii wanaagga samayntiisana ay ku socdaan. waxaa lagama maarmaan ah wax kasta oo la samaynayo alla dartii in loo sameeyo. war haddii la soomayo sumciy reeyaysan noqonin. war haddii la salaadayo istustusaysan noqonin. war haddii qur'aan la akhrinayo dadkayaan la istustusin. ummaddu wax ay noo qabanayaan ma jiro. wax kastoon qabanayna aan u qabano ibtiqaa iyo talab aan ula jeedno ilaahay dartii subxaanahu wa ta'ala. wax kastoo alla dartii loo sameeyo daama watasal, way daa'imaan, mana kala go'aan. wax kastoo ilaahay khayrkii loo sameeyana way kala go'aan. xaaladdaa markaa ogaada. sadaqa haddii la bixinayo ha loo bixiyo ilaahay dartii subxaanahu wa ta'ala. war waxaan aan rabna inay ummadda nagu arkaan, oo ay nagu faantamaan, oo ay mar walba ay nafaaliyaan. xaaladda noocaas ah in badan ma wanaagsane. qofku mar allaala markuu wax qabanayana waa inuu u qabtaa ibtiqaa'a wajhillaah, dalab uu dalbay ilaahay dartii subxaanahu wa ta'ala. nadaraday oofiyaan, طعامكي قوضيان، مساكينتي سيان، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه. يسيان مسكين كيسيان، أقون كيسيان، كلا تحابتي بيصوصيان. مركاسي رهدان إنما نطعمكم لوجه الله. در الله إذن قوضيني، وجه الله إذن قوضيني، إذن كدوني مينو جزائي أبا القد لبضبا. waxaan rabnaa in ilaahaygeena abaalgudo, in rabbigeen abaalgud fiicanna siiya. wax walba oo ilaahay dartii loo sameeyo walaalayaal khaliif buu noo noqonayaa. wax kastoo sumco iyo riya lagu sameeyana ilaahay wuu tirtiraa subxaanahu wa ta'ala. kuwa sadaqada la baxaya mar allaala markay la baxaana manni adi raacsiiya, sida ilaahay tilmaamay subxaanahu wa ta'ala. sadaqadoodu way buraysaa. yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa كالذي ينفق ماله رئاء الناس. wuxuu la mid yahay qofka xoolihiisa istususka dadka u bixiya rabbi aan rumaynin imaalinta qiyaamo. mathalkiisa waa roob soo qubtay oo kale, dhul sibsib oo shimiinto ciid saaran. roobkiibaa ku da'ay, wuu dhaqay, wuu qaaday, fatarakahu saldan laa yaqdiruuna, ma karaan waxay kasbadeen shayna. ilaahayna subxaanahu wa ta'ala dadka xaaladooda saas ay tahay ma jecla. ilaahay qofka markuu wax bixinayo u bixiyo ibtiqaa'a dartii, tusaaluu ilaahay ka dhiibay subxaanahu wa ta'ala. kuwa xoolahooda bixinaya ibtiqaa'a wajhillaah u bixinaya, ilaahay dartii u bixinaya. wa tathbiitan min anfusihim ka mathali janna, waa sidii beer oo kale. beertaasoo birabwatin meel taaga saaran. beertu mar allaala markay ka taagsan tahay oo meel ay ka sii saraysa meesha kale ay ka saraysa, roobka uga badan yahay. birabwatin asaabahaa waabil, roob weyn baa asiibay. markaasay miraheedii dabal iyo labalaab u bixisay. miraheedii ayagoo waaweyn oo laba jibaar ahay bixisay buu dhahay ilaah subxaanahu wa ta'ala. فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل
حتى هدي بيرتا أوسن كدو إن روب وين مطلع أو شوح فطل مدير أو خفيف أو شوح كفلان بودا سبحانه وتعالى وحا تصال اللي قبحيي دادك انت وحبحية عمل قبطه وحسمية حدنا دباتها أي سميين أي تهي إني الرياء يسمع أسميين إني دادك اسكت استصان ربان وحو إله بيشا asaga wax kale gacan siinaya ma jiro wiil u soo shaqeeyo wax u keeno malaha mid dibad wax uga soo diraya malaha ninkii noocaas ahaa walahu dhurriyatun du'afa fa asabaha i'sar beertii baa marka waxa haleeshay oo asiibay baa la yiri waxa asiibtay fa asabaha i'sar baa marka asiibay macnaha waa dabayl dab wadata fahtaraqat markaasay gubtay beertii oo dhan baa gubatay buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala xagu wax ka biila ilma yar buu leeyahay waa gabow waardiye ma qaban karo shaqo inuu galo meel kale ma aadi karo meeshii uu isku haleynayayna saasay noqotay yaa jecel buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa mithal ajiib badan walaalayaal waxaan qabanayna alla dartii aanu qabano soonka aan soomeyn haduusan alla dartii naga ahayn wana la ku soo celinaya qof walbo amal qabta buu dhahay Ilaahay amalkaas oo micigeyga qof kale iyo ugu shariig yeelo asii shirkigiisa waan iskaga kala dhex baxaa Ilaahay uma baahna oo aqna shuraka aan shirk dadka wax wadaag sigooda Ilaahay wuu ka kaaftoomaa subhanahu wa ta'ala haddaba aad ha loo dadaalo Ilaahayna ha laga baqo xishoodkii wanaagan ha lagu socdo wax kasta oo la qabanayo walaalayaal aan Ilaahay dartii u sameeyno maalinta qiyaama marka la tago dad baa waxay la imaanayaan xasanaad iyo ajriyo fara badan oo buuraha tihaama la mid Ilaahayna boor la firdhiyay ayuu ka dhigaya subhanahu wa ta'ala yaana amalkeena la burinin amalka riyaha wuu ku burburaa sumcaha istuska wuu ku burburaa qofkii Allah istustusiya Ilaahay baa dadka tusiya qofkii dadka ismaqalsiiyana Allah fadeexeeyo ceebeeya amalkiisii uu dadka isku maqalsiiyay yaa banaanka la soo dhigaa haday xaaladu soo noqotay waxaan la gudboon amalada aan qabanayno inaan Ilaahay uga barino subhanahu wa ta'ala inuu ikhlaas nooga dhigo alla dartii nooga dhigo waa soomaye soon ikhlaasu alla dartii loo soomay waa la qiyaamaye qiyam alla dartii loo sameeyay sadaqa la baxay sadaqadii alla dartii loo la baxay quraan baa la akhriyayo amalkii alla dartii loo sameeyay inta soo dhan Allah nooga dhigo wax yar oo alla dartii u sameeyso ayaa ka fiican kana qiimo badan kana qaayaweyn wax fara badan oo marka dambana aad sumaaci tustus dadka aad marka kula sameeyso walaalayaal Ilaahay subhanahu wa ta'ala dad buu kitaabka ku tilmaamo ku mutaqana ku sheegay amal bay qabanayaan haddana waxay jecel way yuhibbuun ay yuhmadu in lagu amaano haddii dadku iska ka amaanaan ujeedadaaduna aysan ahayn haddii dadku iska ka sheekaystaan dad qasadkaagana uusan ahayn xaaladda noocaas oo kala dib kuma sugna laakiin haddii qasadkaagaba uu yahay waxa aad qabanayso meesha laga sheego halka ku gaar sharaf iyo ummadda dhexdooda ku yeeliyay cizi saddex qofood baa naarta lagu horiyaa maalinta qiyaamaha soo rasuulku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam waa nin xaafid quraan oo cilmi bartay وان صدق بطنا وان جهادك الله كدنتي سبحانه وتعالى وسدح ذا عمل وفي في عنه وقايها بضن متكا وحاد نافت وكوغالي وحي وبرتي ايا وحي ولجيدي الى ددكو امانان ما انتو دنبو هالجمهي شهاده سو قادن لها معترف نقن لها ومد لا دخشيغي لها سيركيسا ملكس لغو دجين لها حالد كلا مبا اهينبا قف كستو علمي برتا او waxyaabaha ilaahay wajigiisa lagu raadiyo oo sanana u baranay illa ardi iyo dheef adduun inuu ku helo maahane ma helo oo ma arfiyo raayxada jannada afar baa tilmaantay walaalayaal hadii ilaahay hadhow uu ku sii waa gooni laakiin ninkan dhibka haysta muxuu yahay qasadkiisaba ujeedadiisaba waa inay dadku amaanaan waa inuu ardi adduun markaa ku helo ninkan noocaas cilmiga bartay ilaahu waan bartay ummadina waa baray quraankii waa akhri ummadina waa nu akhriyay waan tajwiidiyo waan qurxiyay si kastaba hadda been loo baa tahay la leeyahay qaari hebela alla fiiriya saaahaya cod macaana in lagu dhahadrabtay waana lagu dhahay naarta lagu jiidaya ka labaad waa mid sadaqa badna sadaqadiisina wuxuu ula jeeday in dadku ay amaana saqisana tolka ninkana ka muuqda in la yiraahdo been baad sheegtay waa la jiidaya ka kalena wuxuu rabay shujaac alla geesi dirac oo illa allah waana la dhahay markii ilaahay dartii loo sameeyo wax kasto la qabanayo la xaqana waafajiyo soonkeena kii dar alla loo soomaa Allah nooga dhigo wabillahi tawfiiq wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam